waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ka furmay shirka gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa daafuray gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaana daafurka qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo sidoo kale agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay intuu socday dhammaan gudoomiyaasha gobolada Bay, Bakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo hay'adaha wada shaqeynta kala dhaxaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo xubno wasiiraha ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ugu horeeyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo xubno wasiiraha ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Haddaba waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ka warbixinaya. Raxiim geeka wayba mayl raay shirkun haayay markin koreyti wasaaradda arrimaha gudaha dawladda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo in iska weerta dhammaan gudoomiyaasha heer gobol iyo heer degmo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka koobanta tumiisiyeedka degmo iyo sidii gudoomiye gobol ayaa mayl raay shirkan ku qayb galeen taasoo dhanka gol lahayd sidii wasaaraddan ogaada lahayd xukuuraysiinka la hadlaayay gudoomiyaalka gudbi lahayn baahiyaha iyo warbixinada degmooyinka Sheldon ee Koonfur Galbeed maadaama suurtagal in hayno wasaaradda marka birsho dhamaantii intii hal mar la wada sayd laakiin hal Maryland iska sheena saasoo kala ku qayb galaan hay'adihii oo mayl raay la shaqeeyay jari dhammaan guud ahaan Koonfur Galbeed humanitarian-ka amse in shaqada arrimo Sheldon ku shaqeeyay dhamaantii hay'adahaas oo ku qayb galeen kulankaas oo mayl raay sidii siinba wadagayteen furi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inda furi oo ku qayb galeen hataa nasiib wanaag hay'in iyo mayl raay qayb ku hadan furitaanka shirkaasay gudoomiye baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti iyo gudoomiye baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo mayl raay nasiib weyn weeldan inay la qayb galaan kulankaas oo ay kulan eedan balaaran oo maalmo ilaa 3 maalmood lan ka talgalay inuu socdo guud ahaanna marxaladaha Koonfur Galbeed dhinaca amni arrimihii bani'aadanimada horumar waxbarashada iyo caafimaad iyo dhammaan degmooyinka iyo gudbiyayaan si oo mayl raay gudowladda Koonfur Galbeed an kanagata inay wal ku qabata dhammaan degmooyinkaas baahiisho intii mayl raay saasoo kale bulshada caalamka iyo hay'adaha mayl raay la qaybsata kulankaas may kala muhiim ah dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka ani tababar la si mayl raay sidii shaqadiyo iyo sidii on la wada shaqeey lahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka wasaaradda Sheldon dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya saasoo kale way ku qayb galay qaar kumid ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoo hay'ti kulan eedan muhiimsan. Cabdullaahi Maxamuud Saad Cabdullaahi Afani telefishinka caalamiga ee TV magaalada Baydhabo. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.